السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونكسد وديال ميل كستو الدنيا نقل سعتان وهبينيمو أحد بشهر ديسمبر نيسي قريس وشان يلباتنا سنة لبدا كون يلباتنكا قضبات برامج كان كما قال دونتان وحا كميدا مدحينها جمهورية فدرالك Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo markii ugu horeysay kashifay isla markaana shaaca ka qaaday askarta joogta magaalada muqdisho ee soo deysa qaraxyada iyo guud ahaanba dhibaatooyinka ka dhaca magaalada muqdisho oo sheegay in askar booliis oo dowladda u shaqeynaysa ay qayb ka yihiin qaraxyadaasi iyo waliba dhacdooyinka argagaxa leh ee ka dhacaya magaalada muqdisho waa madaxweynihii ugu horeeyay ee si cad u sheega in askarta dowladda u shaqeynaysa qaar ka mid ah ay howlahaasi ku lug leeyihiin waxaa madaxweynuhu shaaca ka qaaday guud ahaanba arrimahaasi iyo arrimo kale oo la xiriira booliska wararkii ugu dambeeyay naga soo gaadhay magaalada muqdisho ayaan soo qaadan doonaa ee arrimahaasi buuqa faraha badan dhaliyay ku saabsan oromada iyo axmarada oo maanta dagaalkii ugu adkaa uu dhex maray isla markaana dhimasho fara badan ay ka dhex dhacday iyo xogihii ugu dambeeyay halka lagu dagaalamay iyo weliba Soomaalida dhankeeda oo war la yaab leh laga soo sheegay oo la xiriira dagaalkaasi oromada iyo axmarada dhex maray xaaladda dowladdeegaanka Soomaalida oo dad fara badan ay ka dayranayaan marka la eego xilligan duulaan culus ayaa deegaanka Soomaalida lagu soo qaaday oo dhinacyo badan leh wararkiisii ugu dambeeyay iyo waliba cidda duulaankaasi ku qaaday dowladdeegaanka Soomaalida ayaan soo qaadan doonaa qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan oo magaalada Baydhabo xaalkeedu uu ku jiro ayaan barnaamijka habeenimo ku soo qaadan doonaa saaxiibayaal soo dhawaada aan ku bilownay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo maanta khudbad ka jeedinayay 79 guurada ka soo wareegtay xuska maalinta ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa waxa uu madaxweynuhu uu ka jeediyay halkaasi khudbad dhinacyo fara badan taabanaysay isla markaana guud ahaan arrimo fara badan lagu kashifay madaxweynuhu waxa uu markii ugu horeysay ka hadlay qaraxyada iyo weerarada kala duwan ee ka dhacaya gudaha magaalada muqdisho waxaana madaxweynuhu uu dusha ka saaray arrimahaas isla markaana uu sheegay inay qayb ka yihiin qaar ka mid ah ciidanka booliiska Soomaaliyeed madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu digniin u diray ciidamada dowladda waxaana uu sheegay in qarax kasta oo dhaca isla markaana ka dhaca magaalada muqdisho la soo marsiiyo baraha control ee ciidamadu ay joogaan isla markaana aysan macquul ahayn in arrintaasi markasta ay dhacdo wuxuu ku tilmaamay askarta fududeysa qaraxyada inay yihiin kuwa dadka laaya oo qayb ka argagixisada baabuur kasta oo sida qarax kasta oo muqdisho ka dhacaya iyo wax lagu qarxiyo bar control ayuu soo maraa meel askari jooga buu soo maraa ama meel ay guud ahaan booliiska Soomaaliyeed ku sugan yihiin ama ciidamada nabad sugidda ama military midku doonaba ha ahaadee askari ayaa taagan ayuu yiri askarigaasina waxa uu guud ahaan u fududeynaya inuu qofkaasi qaraxa wado uu soo marsiiyo dad fara badan oo Soomaaliyeed oo xitaa laga yaabo inay eheladiisu ku jirtaan uu ninkaasi naftiyaha ligaha ahi uu ku laayo waxa uu raali ka yahay askarigaasi in guud ahaan uu shacabka Soomaaliyeed canshuurtoodana uu mushaarkiisa ku qaato oo guud ahaan uu caruurtiisa ku biiliyo dad kale oo shacab ah oo Soomaaliyeedna lagu dilo guud ahaan isaga sababtiisa oo isagu uu ahaa ilaaliye ama waardiye guud ahaan waxay dad fara badan aaminsan yihiin in askariga soo deynaya iyo waliba kuwa qaraxyada soo maleegaya ay isku dambi yihiin marka la isoo dhigana uu ka sii dambi badanayo midka la aaminay ee isla markaana taagan wadada kaasi oo fududeynaya ama qayb ka noqonaya weerarka dadka lagu leynayo waxa uu intaasi ku daray madaxweynaha jamhuuriyaddu isla markaana uu sheegay in baaritaan uu socdo haatan isla markaana baaritaankaasi lagu hayo qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada booliiska oo uu guud ahaan uu sheegay madaxweynuhu inay la kaashanayaan hay'ado ajaanib ah kuwaasoo loo haysto inay baabuur qaraxyo waday ay soo daayeen isla markaana ay soo dhaafiyeen baraha control ee ku yaala caasimada waxaa lagu daba joogaa dadkaasi ayuu yiri waxaan la soo qaban doonaa maalmaha ka mid ah oo cadaaladda ay wajihi doonaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu noqonayaa madaxweynihii ugu horeeyay ee si cad u tilmaamay in ciidamada booliiska qayb ka mid ah ay la shaqeynayaan argagixisada isla markaana ay garab ku siinayaan in dhibaatooyinka ka dhaca magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya ay arrimahaasi u fududeeyaan si kastoo ay haato marar fara badan ayaa booliiska Soomaaliyeed iyo waliba qaar ka mid ah ciidamada farta lagu goday la sheegayna in arrimahaasi qayb ka yihiin oo ay dadka dhibaatadooda ay ku jiraan dowladda Soomaaliyeedna ay dad fara badan oo argagixisada u shaqeynaya ay mushaar ka qaataan oo ay la joogaan mar walba siraha dowladda iyo guud ahaanba fududeynta argagixisada ee hawlahoodana ay dowladda ugu jiraan
dhinaca kale xaalka magaalada Baydhabo ayaa sii cakirmaya iyo guud ahaanba koonfur galbeed waxaana madaxweynaha xilku ka dhamaaday ee Cabdicasiis Laftagareen uu isku dayay in wado walba uu u maro sidii uu kursigaasi u difaacan lahaa oo uu ugu sii sugnaan lahaa koonfur galbeed balse waxaa xogaha qaar ay tilmaamayaan oo naga soo gaadhay magaalada Muqdisho in shir ka dhan ah madaxweyne Laftagareen uu ka dhacay gudaha madaxtooyada Soomaaliya kaasi oo la sheegay in laga arrinsanayay sidii ninkaasi meesha looga saari lahaa dhibaatada faraha badan ku haya shacabka iyo guud ahaanba dadka ku nool caasimada ku meel gaadhka ee koonfur galbeed dhibaatooyin kala duwan ay ka dhaceen maalmihii la soo dhaafayna lagu dhex dagaalamay kulan saxaafadda laga qariyay ayaa xalay ka dhacay madaxtooyada Soomaaliya kaas oo looga hadlay xiisadda ka taagan magaalada Baydhabo iyadoo warar xasaasi ah ay ka soo baxayaan natiijada waxyaabihii laga soo saaray kulankaasi ila wareed lagu kalsoon yahay ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen ama ay noo sheegeen in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu qaabilay xubno ka socday murashaxiinta madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya madaxweynaha dalka ayaa muujiyay sida uu uga xun yahay dhibaatadii shalay ka dhacday Baydhabo iyo guud ahaanba dhibaatooyinkii maalmihii la soo dhaafay ka dhacay magaaladaasi Baydhabo waxa uu intaasi kadib Shariif Xasan Sheekh Aadan Maxamed Aadan Fargeeti iyo waliba siyaasiyiin kale ay Villa Soomaaliya weydiisteen inay ka taageerto sidii Laftagareen xafiiska looga saari lahaa maadaama uu waqtigii ka dhacay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa waqtigiisii u dhamaaday waxaana madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ay xogtu tilmaamaysaa in uu sheegay ama uu la wadaagay madaxdii uu la kulmay in doorasho ka dhacda koonfur galbeed ay tahay mid muhiim ah isla markaana aan marnaba laga ogolaan doonin inuu muddo kororsi uu sameysto madaxweynaha xilku ka dhamaaday ee Cabdicasiis Laftagareen waa hadaadigii kooxdii nabad iyo nolol ee dhibaatooyinka xoog badan ka geysatay gudaha wadanka kulanka siyaasiyiinta iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa xigay shir kale oo ka dhacay isla markaana dhex maray afhayeenka golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe iyo waliba madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa qorshe u dejiyay sidii meesha looga saari lahaa Laftagareen iyadoo istiraatiijiyadda uu guud ahaanba isticmaalayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay la mid tahay tii meesha looga saaray kooxdii uu ninkaasi Laftagareen ka soo hadhay ee nabad iyo nolol Shariif Xasan ayaa la siiyay 3 milyan oo dollar oo Mareykanka xilligii nabad iyo nolol si loo fududeeyo guud ahaanba inuusan isu sharixin xilkaasi maadaama Laftagareen ay farmaajo iyo Fahad meesha ay u rabeen isla markaana waxa uu madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan xilligaasi u ogolaaday inuu iska casilo jagadii madaxtinimada ee koonfur galbeed sidaas oo kale waxaa hadda socda qorshe ra'iisul wasaare Abiy Ahmed Cali iyo waliba madaxweynaha Soomaaliya ay xalay qadka telefoonka kaga wada hadleen sidii ay guud ahaanba uga saari lahaayeen ninkaasi Laftagareen ah meesha isla markaana qorshahaasi loo meel marin lahaa oo Laftagareen uu lacag u qaadan lahaa meeshan oo isaga bixi lahaa Abiy Ahmed iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku heshiiyay in Laftagareen uu halkaasi dhaafo oo uu Abiy Ahmed ka soo dhaadhiciyo inuu ninkaasi meesha isaga tago warar aan ogaanay ayaa sheegaya in Cabdicasiis Laftagareen ay u badan tahay inuu lacagtaasi uu qaato isla markaana kursiga uu baneeyo balse waxaan la ogaan karin go'aankiisa kama dambaysta walow kooxdii nabad iyo nolol lafteedu ay doonayso in ninkaasi uu meesha sii hayo laguna difaaco xiisadda Baydhabo ayaa waxa ay buddhig u noqon doontaa sida Laftagareen loo wajaho taas oo seeftaasi haddii ay qaado ay ku socon doonto Siciid Dani Qoorqoor iyo Axmed Madoobe maadaama loo arko inaysan Villa Soomaaliya iyo hoggaanka maamuladaasi aysan isla jaan qaadi karin xilligan oo uu midba meel u soconayo waa tahay haatan anigana wararka naga soo gaaraya dhanka wadanka Itoobiya dagaal aan waxba la isula harin ayaa waxaa la sheegay in maanta uu dhex maray Oromada iyo Axmaarada kaasi oo ka dhacay deegaanka Waleta sida ay xoguhu tilmaamayaan waxaana la sheegay in halkaasi ay ku dhinteen ciidamo fara badan oo kala socday labada dhinac walow kooxaha halkaasi ku dagaalamay ay kala hayeen Fano iyo waliba ciidamada dowlad deegaankaasi Oromada waxay Fano sheegtay in markii hore weerarka ay geysteen kooxaha Ola balse ciidamada dowlad deegaankaasi Oromada ayaa la sheegay inay hayeen ciddii la dagaalantay kooxdaasi Fano oo doonaysay inay u soo talowdo dhanka deegaanka Oromada isla markaana halkaasi dhibaatooyin ka geysato iyo dhac iyo waliba boob iyo kufsi kala duwan waxa ay xoguhu tilmaamayaan in halkaasi ay ku dhinteen ku dhawaad 50 qof oo labada dhinac ka tirsan waxaana weli socda halkaasi xiisad culus oo ka taagan ciidamada federaalka ee dalkaasi Itoobiya la sheegay in halkaasi lagu dadgurinayay saacadihii la soo dhaafay si looga hortago xiisadaasi balse warar aan helnay ayaa sheegay in xiisadu ay xadhkaha sii goosanayso xuduudka dheer ee ay wadaagaan Axmaarada iyo Oromaduna ay meel walba colaad xoog badani ka taagan tahay akhayrta sharafta leh wada nagala socoto uu taniyo kulanti dambe nabadgelyo